guusha samxa lagu qiyaasa muxuu yahay miqyaaska dhabta ah ee fawska ama se guul successka maxaa lagu qiimeeyaa haddaynu nidhaahno nolosha ayuu ku guulaystay qofku noloshu waa intee ma intan sanawaadkan adduunka la joogayaa mise waa aakhiro marka lagu daro noloshu qofku noolaanayo dhan ma lagu qiyaasi karaa guusha maalka iyo mansabka iyo magaca iyo maamuuska uu qofku helo kelimada fawz fi lugha waxay yidhahdaan waa najaatun min marhuub wa taxsiinun limarhuub bay yidhahdeen waa waxaad ka cabsanayso ka nabadgeshid iyo waxaad raadacaynayso oo aada heshid aw aldafaru bilkhayr maca xusuuli salaama bay yidhahdaan waa inaad wax hesho wixii khayrka ee wanaaggaad raadinaysay dhibtana ka nabadgeshid idan qofka bini aadamka ahi goals tiro badan buu leeyahay ama ahdaaf tiro badan markasta uu hadaf xaqiijiyaba waxa la yidhaha wuu guulaystay ardayga hadafkiisa koowaad waxa weeyaan inuu iskuulka dhameeyo ama jaamacadda dhameeyo maalintuu shahaadada soo qaato wuxuu leeyahy waan guulaystay imtixaankii waan dhameeyey waan guulaystay ninka siyaasiga waxaa laga yaabaa hadafkiisu inuu yahay boos siyaasiya inuu gaadho maalintuu kursiga fuulo waxaa la odhanayaa xisbigaasi ama ururkaasi wuu guulaystay laakiin dhab ahaan goormaynu odhan karnaaba qofka bini aadamkii nolosha ku guulaystay waxaan oo dham waa ahdaaf marxaliya waxay ku gabagaboobaysaa inaynu idhaahno noloshii waad guulaysatay iyo noloshii waad khasaartay wax ka dhexeeyaa ma jiraan simple goalskan marka la isku wada daro hadaf baad nolosha ka leedahay nolosha hadafkeeda haddaad asiibto oo meesha aad u socotay aada gaadhana waad guulaysatay haddii kalena lama guulaysanin walidalik su-aasha waxay noqon kartaa oo hadafkaan nolosha ka leenay markaa muxuu yihi ma inaynu cunno cabnaaba ma in shahaadad la qaataaba ma in lacag la helaaba ma in magac iyo maamuus la helaaba life burbouskaagu muxuu yahay hadafka aada leedahay goolka aada nolosha maxaad u noosha inaad maxay xaqiijiso qofka bini aadamku waa inuu hadaf leeyahay meel uu socdo uu rabo inuu gaadho qof u nooli inuu wax cunaa ma jiro noolo waa wax cunoo soo toosoo kac dabeetana 60 sano markaad gaadho xabaasha ha lagu geeyo that's not a life nolol maaha taasi qiimo ma samaynayso waxaynu isweydiinaynaa markaa hadafkaynu nolosha ka leenay waa maxay si markaynu ku guulaysanana aynu idhaahno hebel noloshiibuu ku guulaystay marka la waayana aynu idhaahno hebel noloshiibuu ku khasaaray ila waa labadaa mid un haddaad nolosha hadaf ka leeday meel aad u socota hadday jirto meeshii markaad gaadhana waxaan odhanaya waa guulaystay markaad gaadhi weydana waxaa la odhanaya wuu guul daraystay muu guulaysan success ma gaadhin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay goorta la guulaystaa goortaytay wuxuu kaloo inoo sheegay nolosha tan iyo hadafka laga leeyay wuxuu yahay waxaa laynoo sheegay dadka inta guulaysatay iyo inta khasaartay qur-aanka intaasoo aayadood baa ka soo arooray oo ka warramaya alfaa'izuun intaasoo aayadood baa ka warramaya alkhaasiruun waana macnaha dhabta uu noloshu leeyahay markaad labadaasi kala garato rabbi subxaanahu wa tacaala markaa nolosha iyo hadafkeeda iyo waxoo dhan iyo guusheedaba miqyaas baa loo yeelay يعني نولش هدانو تشيرين ثرمومتر أما بارامتر أما wax lagu qiyaasa hadaanad haysanin yani guriga dhererkiisu waa imisa waa inaynu haynaa waxaynu ku qiyaasno markaynu haysano miqyaas la saaro ayaynu isla garanaynaa dhererkiisu intuu yahay laakiin haddii nin waliba isha ku eego wax sax soo bixi mayso marka wax la qiimeynayo wuxuu doonaba ha ahaadee waa inuu jiraa waxaad haysato oo barometers aad leedahay markaad kaatigarayso waxaas waa la qiyaasi karaya waa la gaari karaa inuu jiro rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سورة آل عمران بقول سيدتني يشن بقول سيدتني اللي لبدا آيادود يسكحي ربي وحليه سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت wax kasta oo nool geeru dhadhaminaya muntaha hayati dunya weeyaan baalalay inta doonta joog way dhamaanaysaa wa inma tuwaffawna ujurakum waxa laydin wafaynaya laydin dhameystiraya adduunka waa laga yaabo wax yar yar oo min amalika inaad dhadhamiso sawaan kanat positive iyo negative kay doonaysa ha noqoto waxyaabihi aad shaqaysay wax ka mid ah haday qadhaadhaydna waa laga yaabaa nolosha wax ka mid ah inaad ka soo dhadhamisay haday macaanidna waa laga yaabaa nolosha wax ka mid ah inay soo dhadhamisay laakiin waxa la yiri taas iyadu way dhamaanaysaa absolutely waa dhamaanaysaa laakiin waxa lagu dhamaystirayaa baa la yiri amalkoo dhan wixii aad qabato dhan abaalmarkiisa waxaad wada helaysaa inma tuwafaw wafa baa lagu isticmaalay waxa laydin oofinaya laydin dhamaystiraya ujurakum yawm alqiyamah ba ilaahay maalinta qiyaama alhayat alukhra hayat alukhra aakhira markaynu gaadhno nin walba shahaadadiisa la siinaya qalin jabintaadi adduunka inta joogta imtixaan baad saxaysay papers baa lagu dhiibay waxa la leeyahay waxaad adduunka ku hayso dhan side ku doonaha ahaado haddaad madax ahayd waraaqad buuxinaysay haddaad lacag haysatay waraaqad buuxinaysay haddaad faqiir ahayd waraaqad nolosha dhammaanteed imtixaan bay hadaad ku jirtay imtixaankaagaasi resultkiisi jawaabtiisi waxaad helaysaa baa lagu yiri maalinta qiyaamaha soo taagto ayaa lagu dhiibayaa jawaabtii imtixaanka سادرادت بإلهي وحولي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نك قول يقول استوى كانوا مرة بيري نار نكي لغا نفطه زحزح نك النار تهف لغا صوصية لغا إلالية لغا درقية وأدخل الجنة جنة لقية كاسب إلهي لي فقد فاز مقياس الفوز مركا واكن قور موقفك قول استي wuxuu guuleystay markuu naar ka badbaado ee janno galo ayaa rabbi tilmaamaya ama adduunka inta joogteen waxaad guule ku sheegayseen oo dhame wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur ba ilaahi ku xigsi nolosha adduunyo waxa bidbidka lagu kadsoomo nolosha adduunyo gabigeeduba bidbid lagu kadsoomo bay ahayd ba ilaahi ilaahi subhanahu wa ta'ala ayada ku xigta ilaahi markaa wuxuu yiri waan idin imtixaamaya xoolaha nafta ayaa idinku imtixaamaya gaalada la idinku imtixaamaya ayo ahlu kitaabka iyo waxa la mid ah war badan iyo mushrikiinta ba adan kathiran ba ka maqli doontaan ba ilaahay wax badan oo idin dhiba adiyad badan ma nimanka ka maqli doontaan ba ilaahay ee waa in tasbiru wa tattaqu sabrkii taqwada loo baahnaa haddaan la timaadaan waa azmi al-umur ba lagu tilmaamo idan ayuha al-ikhwa الحياة الدنيا تنتهي بالموت نلاشا الدنيا ضمانيسا غيرانا كو ضمانيسا مغزى الحياة مركا وحويان هو الابتلاء تانا ينكون والله purpose كدانتا لغا ليوان لو اتحامه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بإلهي أيكم أحسن عملا أدونك هو ابتلاء إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا أدونك وحلوها يوردم وامتحان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أدونك امتحان وحانتكو امتحانتي وحاد قبرنس
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى وحانا لغوه اتحاميا امتحانك الرسمي هي وبالعبادة تكليف واقع وابتلاء لكن هو ابتلاء بالعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ابتلاء سيادة وجهك دون يهقوي ماضو قرآن كإلهي لبا النبي بك ورمى لبدا النبي باسكو الصفة لغو الشيء لكن قرآن كل لبدا النبي وحي نوغ الشيء ووحك لدرقصا نبي سليمان نبي سليمان قرآن كي قصص كيسين بدن ما مغشه iyadoo laga waramayo inuu boqor ahaa oo afaf badan garanayay oo quraanjadu waxay ku hadlaysaa garanayay oo mantaqa tayr shimbiruhu waxay ku hadlaan garanayay oo jinka loo sakhiray kuwa badda quusay iyo kuwa meel kale u boodaba bal kuwa leh aqoonta maanta dunida taala ka sarreysa oo in arshu balqis laga qaado saba oo falastiin la geeyo oo ilbirqsiye lagu geeyo technology-ga dunidu maanta ma awoodo technology-ga dunidu maanta wuxuu awoodaa cod in ilbirqsiye lagu geeyo hadalkaaga milliseconds ayaa dunida tarafkeeda kale laakiin sameecada ay horta aan intu tuuro oo yana as a signal or electron loo tuuro xaga kale cidi kama receive garayn karto technology-ga wali ma hayno laakiin nabiyullaahi sulaymaan alladhi indahu ilmun min alkitab ana atikaha muxuu قبل أن يرتد إليك طرفك عرش بالك لقى تروح حاجة كلامك صار داعي أنت أنا البرق سجاجو تكنولوجيا أنت اللي جوهست بل إلهي وحكبر ملكا لا ينبغي أحدا من بعدي بغرطيان أنا قد ضبضي عندما والله يتحامل امتحانك يهرب وحوارك إن أنا آدو قولي سنبو استرنسيين ورن كرنا هدو يرجو صح نقضه هو مركو لها إني أحببت حب الخير عندك فرده يوحي بهديسي إنه وقت عبادين يرنا في السياق لو يريب هذا جبوا ده بجورجورة مركز إلهي وحكد البضي امتحان كان كوين إلا مريو وأهملك لا ينبغي أحدا من بعدي نبي سليمان كوحى صورنا أكتيس الله دقي وقول استي إلهي محكو سفيه نعم العبد وورث سليمان وورث داوود سليمان من يده سورث سليمان داوود ووهبنا داوود سليمان نعم العبد إنه أواب إلهي نبي داوود سليمان ما نسين نبي إلهي دبت أنا محل نعم العبد هي إلهي كنت الماما أواب إنوها هي نعم العبد أوكي نرشي إلا ابتحامي وكو قوليستي وحلا سي درجة نعم العبد قرآنك وحكا ورمي النبي كله نبي كله وح كلو إلهي قرآنك كشيء ما شرته إلهي إنه بكيو شيفي مو يعني نبي الله أيوب قرآنك مالك استعدكو أركته بكاء ما لقى ورمي سنة النبي محمد حديث علماء السؤال وريا واحد المام يسا طبعا هي سدات سندود إنه بكيو شيفي أو حنوسنة ولا نعي السيرة إلهي محكول سفيه إنا وجدناه صابرا حكو حقا نعم العبد إنه أواب سليمان وقول استبال إلى نبي سليمان نبي أيوب وقول استي لبدو ده امتحانه والله امتحانه كلا نوعه مد بيج كسياسة ده يملك جيه ما ملك يحولها اللو ديبي كاس على وقت حامة دبتنا وضدي تال لقى الربيب مريه دان إنه إسلامي وضد دان إنه دين تسوق وحي لقى الربيب فوليه وحنا لو سفيه نعم العبد إنه أواب أيوب إساق أنت القرآن كوي نوغا شيغا والله يتحمل لا فيه حساب لو يتحامل إساق حنون يدب أم باقو دعي وا تشيف صدي والله وضن نعي ولا قتغي هل كاسو تشيفي إني مصري الشيطان هل كاسو إلهي بريي إلهي وحكو سفيه سقنا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إذن هدفك كما ضمبيستي وحويان ما حقيقة سيلاهي الدوني مديسي ها هو إمكانياتك إلهي كسية كحرمت امتحان dadka barba u haystaan khilaaf la dhisownin inuu ku imtixaamno kuma imtixaamin
إلهي القرآن كم حكوا لي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها بالليل نفنا إلهي ما يتحامو وحسيي موياني انت اللي ديبي اديga nolosha lagaaga soo beegay beejka ma dooratid ilaahay baa doora inaad madax noqon iyo inaad miskiin noqon inaad maal qabeen noqon iyo inaad faqiir noqon adigu beejka dooran maysid laakiin adigu waxa dooranaysaa saad u maamulaysaa beejkaaga jawaabaha imtixaanka marka lagu dhiibo maxaad ku qoraysaa waxaad ku qoraysaa baad ama ku faa'iisaysaa ama ku dhacaysaa labada nabi quraanku uu tilmaamay labadaba ilaahay wuxuu ku sifeeyay ni'mal abdu innahu awwab labadaba waa guuleysteen midi wuxuu ku guuleystay inuu bukaankiisu ku safro ilaahay taacad ugu ahaado saa quraanku inoo tilmaamay midina wuxuu ku guuleystay dhan inuu hogaamiyo oo jiniya insiba leh oo shimbir iyo xayawaan bale oo ciida ka badan wato walidaalika ayuha alikhwa cibaada inuu imtixaan ku nahay عبادة أيانو امتحانكم إنه إلهي عابدنا عبادة هو من الفطرة قفك بن آدم كاهي لكن لمن توجه بعض ما شاء الله يا وتشهدين يسا حقيس تتكبر بها ودود عابدة أفرأيت من اتخذ إله هواه هي إلهي المامية ومن الفطرة ولذلك ما تاريخيها الندى بلوتارك تاريخيها كي جرين كي هوري وما وحا لغا شيء وحولي قد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون ومدن بلا قصور ومدن بلا مدارس ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد بوليه تاريخ ذا بني آدم كمركا لبارو يعني حفريات قد مالك استصمين waxay dhahdaan waa la helay magaalooyin aan qalcad lahayn ama qusuur iyo daaro waaweyn lahayn ama iskuul ku oolin laakiin magaalo meel lagu caabudo aan lahayn lama hayay leeyihiin dad waliba ma amaakin lil ibada fi taariikh waa jooga walidaalika isaga laftiisa marka la wuxuu tilmaamayay in madinatun bila ardin taqumu alayha ashal min qiyam dawlatin bila ilaah bulaha magaalo aan dhulba laga dhisin dhulba loo haynin lagu yiraahdo dhis ayaa ka fudud buu yiri dawladaan diin ba lahayn in la yiraahdo dhis noloshu aynu joogno waa imtixaan imtixaanka waxa guuleystay ninka sidii la rabay uga jawaaba miqyaaska guushuna wa faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz qad aflaha man zakaha wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima miqyaas waka miqyaasku ma aha inta xoolo yeelatay ma aha inta aad maamushay ma aha inta aad magaciya maamus yeelatay nabi maxamed alayhi salatu wassalam ومل جوغا صحابتي قولا سو مري نينبا سو مري ما رايكم في هذا ابو مركا ورنكاس محو يدين لي بل كورما وحيد هذا كان هو من اشراف الناس هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع وحيد هذا كان هو دقيده مغالده odayada reerku kamidii wuxuu mudan yahay hadduu erga galay in ergadiisa la aqbalo hadduu gabadh doono in loo guuriyo yani waa nin warkiisa hadduu hadlo bay yidhaahdeen in la dhagaysto saasuu mudan yahay nabigu iska aamusay calayhi salaatu wasalaam mid kalaa soo galay meeshii soo maray markaasuu kii kale yidhi maa ra'yukum haada warkaasna balka warrama muxuu idin leeyahay waxay yidhaahdeen kani ilaahay rasuulkiisiiyo waa min fuqaraa'i lmuslimiin de kani waa wax mahaysatada muslimiintu ka mid yahay هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع بينها ذلك كان واسك مساكين تا إلهي ما لاسك مرمر يسوي مكمدية هذا ورشة أنا نين عدين لقوا تاجي سوى لقي سنة سماها هذا ريرا قبل ويديستنا نين لو جورنا يماها هذا إرجع قالنا إرجع دي سعيدي لقي سنة ما يسوي هذا نبغى حكوي لمكاس هذا خير من ملء الأرض مثل هذا مثل هذا كاسب النبي يقول وحكى خير بدي دولك مجي أو كنا كنا يدوك أمانة إنسان دوني ده مجي ده كاسة كام مسكين كابر نامه حديث البخاري وري مسلم كان وكوي هلا حديث كاس الصحيحة هي وحوت المامية دوني ده مجي ده أشرافه وما جاي ما موصله
مسكين إلهي عابده اسكو دابا با لليه وايا مقاييس بني ادم كا لوgu qiimeynaya lagu kala gadisan مقياس ka dhabtay marka wax lagu qiyaasa wuxuu yahay nabi maxamed baa wuxuu